على هو محسنتين أيضا بريتا مالي شقة مالي سكول بري هاي حضنا إلى ساعة نلا فيديو ما هتقولي ما أنتي سوتشيتي لها مركح يكسا وحن لها عام وحفلة دان وحدة بدن إلا سوق بنقابية وحن سودوينينا ومرتين وفاه ودن كان إنجليز ونصيبا ويانا عام وكودا قيب قادنا حلدبان كقرن حلدبان كدهدير حلدبان كحلدبانديسة محمد أبو بكر علي جعفر. الله الرحمن الرحيم. بليز وحير هلا عم صيدك كراليا أنا صدقي سمع. شرفت له حاكم فندية منصب مسؤول الجولان على كل سلامنا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب وعشرف اللوعة إن أنا قلت غير بشان كل كان تيمها له يعني كنت أقول هنا كسر دوينو حلبان محمد أبو بكر علي جعفر وكم بذا xildhibaanada golaha shacabka oo aan ognahay howlaha baaxadda leh uu ka qabtay inta uu howlaha ku jiray xildhibaane mar labaad mar saddexaad ku soo dhawow magaalada London dadkan dhanna maanta taagan waxay u joogaan inay ku soo dhaweeyaan waxayna isku gogoshaan dadka dhigay anuu afkooda ku hadlaaya ama qaabayaasha gogoshaan dhigay وأمهات علينا يا وعنكرون أمهات علينا يا مرتي شرفك أقبلي ويريتان كيلو يري وكا كوبان وضياشة سياسيين اللي يرضى قبلها بعض الفنانين ولا لي أقوام حسيته إذا كسو أجيبتين باقي إلا يدين دري وهاي هنا كسو كيف مشان مدرشة حلوان أبو بكر محمد جعفر وحان قرينا إنه يحي جعفر هل يأيدي اللبات وحان كترجم آية bulshada intaan la eg ee maanta u soo adduunkoodii ku soo daayay waxaa la yidhi dadnaka ugu hawlee runtaa ka fakanaysa hawshooda ku soo daayay soo dhowaynta xildhibaan abubakar maxamed abubakar jacfar walaalayaal waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يبالغ علينا عوالنا يشكوها يكفينا أحنا ومسلمينها ولا لا استحالة وهذا سلاحي وإسكاله وحلنا الإمام جعفر waxay la tahay sadar muuqdaa su'aal ka dhan dadka maanta halkaan kuugu yimid odayaal aan u jeedin in kuraasta laga daba wado yawlihii halkaas waxaa ka cad oo aan markhaati u baahnayn
meeqaanka iyo magaca aad noogu joogto waxa weeye qof walba wuxuu ummadda u dhiibto ayuu ugu imaanayaa waxaan kugu soo dhawaynaynaa waxqabadkaagii anigu 3 qodob baan ka taabanayaa waxaan ku hadlayaa odayaasha magacooda qodobka ugu horeeya xamar oo laga aqoon wadda la dhiso ninkii bilaabay weeye inuu iskiisa u dhiso hawl wanaaguu ka bilaabay wardiglayna waa ku xijiyeen isagoo guddoomiye ka ahay kabacdina waa lagu wada dayday iska wax u qabsaa dhacday waad la wada socotaan xamar waxqabadka iyo sida waddooyinka loo dhisay waxaa ku xigay khayr allaha siiyo ummadda caawa meeshaan kugu soo dhawaysay qabiil ma aha qoys ma aha dad saaxiibbaa ma aha magac soomaaliyeed baa lagugu soo dhaweeyey markii la rabay ooda afka in laga saaro oo wax soo gala la waayey afisyoona meeshii doorashada anigu xamar baan joogay ninkii ugu horreeyo soo galu ah mudane xildhibaan hogaamiye abaabule agaasime geesi maxamed abuukar cali jacfar meel weyn ayaa nooga taallaa anoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada london odayaashooda waayeelkooda guurtidooda dhallinyaradooda iyo dumarkooda intaba anoo mar kale ku hadlaya magaca fanaaniinta soomaaliyeed ee nooc walba leh hal abuur heesaa musician cayaartooy intaba leh iyo gabyaa waxaan kugu soo dhawaynaynaa qalbi furan gacmo furan iyo qalbi saafiya ayaan kugu soo dhawaynaynaa abaalka aad gashay kaalintaada aad ka soo baxday wax la tirin karo ma aha inta magac oo aan kugu tilmaamay iyo in ka badanna waad mudan tahay waana istaaheshaa أنا كوهد لها يمقع وياك يا دمان أنت صومالي لا جعل ومر والبرمو قرب تاغن وفد الصومالي هدو يمادو أنو إيجن مدحويني حلبان يقف كستوكي يمادو دالك سودو وينايو وحكينا يا جعلك يوقف دالكو دي النمط لغنيكو سي عروتو ودك ودك مدى حلبان جعفر جزاك الله وخير وحكولينا سودو دالكان إنجليزكا كل ما قالها وهيستا وحيكون في عين سودوينتا ويكون في عين الودن جو نبض ونقضو عروتو ذا حبسيدا كاركود كجلان كاركود هالكا مدية اسكوها إسلام بيانا يكون نقضان يكون مستاني الروان بعد ما هذا حلبان مالية حلبان هذا كوكو بابي إن دالكي نبض لغنقو ولغبحو فنحمد ما تعرفون جلين الله نقصار
المدعيسو جعفر وحق على مرات أضو عيدك هذا وطهلك كبحدي لوكا هيران يا شباب نحو نباس مرن لوكا نحمري أضو قصعدو بحوها قلبي قصعدو لكن حدود كيف كسر الله تبارك واحد كل الله واحد على عامل وصل ومشان أيضا البور حرة لكن عرجينا بإذن الله الكريم إلى دويس السعي ما أنت السعي أصوات ونطيب وهذا يركب أذكر رئيس هذيك سيادة ويا لطو دجاج كان من دجاج كاس البور إلى حروبه عاوه مراد كينا وزير كان سود ويننا جالوس عندك سبورت يا معي سبورت جوا حوالي قبيل منها وورالو سبورت جينا أجيال وفي عيان وده كنا سبورت كيسا هراء الله مريم مدحوينين سبورت قابل شفنيو بسودو كان مدحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى. فيزا كانوا ماضينا حتى يجي شيء اسطنبول أيام وصلتوني ناوي ماذا صاحبك محمد أبو محمد وحياة الله ما نحيي أنيقا السجا يصاد المعلم وعدتك مامك ديني للديون كتوسي أثار مراتك واقع لكان حلبان كلام مرحتان أنا حلبان بدوبياشا مقالين المسلمون إنسان ودم بس قلوتي نك كلية لندن كل شيء يعني ما نحسوينا ودم هاي واحد مهم سن وأوري مالي واحد هاي إن أنا مهلعليو أبال وين أيه يقول لي جعفر سكعوا دقيس 2019 حجكي وقدم بي أنا إيه هو يدي وحجك جوبنا وكل ني وحال كانوا أدقي هاي وفرح إيو أون وماشي نقول لها إلهي أمركيس جعفر ينكر الله يراهدون فيصل عربي أيام وصوبه إلهي كشكو جعفر فيصل ما تزرد بالي وأوراق بالية وليكم إلا بريو وقرية سنة ويقعد سوبي طفقنا شرف سباجة وقت المقالة دي نحن بقصوا دويو شرف وين يتهاي وحن كسي جعلان لها ولينا مدحوين سوشك لك جعلان لها أنا honorary citizen أطول كان أي وادي وقتها عالبور يديني لي أطول سنة بركة وحن كهرباء مقالة بقصوا دو مقالة دي هذا نقول فرح سنة هاي سنة بقصوا دوي إن شاء الله تقولي هربنا كورة جينا سنو زاهي بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهلايو قدوميها جالية الصومالية دلكم بريتين أما UK وحنا نقول السلام يا مدن يا المروين صلاة إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وحكر العاور ربا إن نسوق ويوم جسي برتاح بارود قرحديو جمعة وبريرو مدن جعفر أهلا وسهلا welcome to UK runtii anaa ku hadlayo mar labaad magaca jaaliyadda Soomaaliyeed UK ee caawa goobtan ku sugan mudana gudoomiye waxaan ku leenahay waxa tahay geesi waxa tahay halyay Soomaaliyeed aniga gudoomiye kaliya kuma tilmaamo runtii dalka wuxuu ku jiraa xaalad kacdoon ah
تعالى وبركاته لما مرت شرفت لك لما ورياش كالدول يوتيوبرنا كاميرماننا مدحنا كالدول عيالتوني هوري قوة دمبه قدها قرق بدن هويويكا فنانين تاني لما انتينا وحاجة السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله طلبات عاو برنامج كده وصول دوين وحنصول دوين لا ولكن محمد أبو بكر جعفر مجد عيسى كوين جعفر لابد يكون أيام مجد اسمه لي إلا ما تنوى تاجر سنة مركا وحان لنا هاي جعفر مقالة كسول دو ومقالة هذه اللبعض وكل هذه اللبعض ووجد الصومالوي سيدي وليهين فمن معها قلوب معها حزب معها فالصومالوي شنط الصومالي كسول مركا هذا الكلام كمان أنا أقول له قلبي فورا كسول دو مقالة لندن وأنا كما سنت أسيدنا نوصل بوقت السلام عليكم ورحمة الله madaxweynaha maanta taagan iyo dowladda maanta aynu haysano haddii aadan adiga jirin waxay ahaan lahayd inay dowladnimadeena gadaal u dhacdo marka waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed beeshaada maaha inta fadhiso waa magacaagii bay ku soo baxeen Soomaalinimadaadii bay ku soo baxeen waxaan kula dardaarmayaa weligaa inaadan Soomaali ka weynaan waxaan kula dardaarmayaa qaranka Soomaaliyeed ee marka hore xafladan quruxda badan ee qiimaha badan gabdhihii iyo wiilashii ka soo shaqeeyay ee soo agaasimay ee inagana nagu casumay uguna talagalay inay ku soo dhaweeyaan xildhibaanka qaranka aad iyo aad baan u mahadcelinayaa intaa kadib waxaan leeyahay xildhibaan Jacfar ku soo dhawow magaalada London annaga dee magaaladeennii waa tanaa dan xamar kula joognay halkan baan ka soo baxnay rayskeenu waa halkan waxaan ku leenahay soo dhawow intaa kadib walaalayaal waa laga wada hadlay xildhibaan Jacfar waxa uu socdaalkiisu ku saabsan yahay oo ah la dagaalanka argagixisada runtii waxaanu leenahay kulligeen hal waddan oo Soomaaliya yidhaahdaan Soomaaliya haddaysan dowlad iyo kala dambeyn iyo nidaam aysan helin dalna heli mayno deegaanna heli mayno weligeena qaxootiyan ahaanay xildhibaanka generaalka gudoomiyaha geesiga maxamed abubakar jacfar waxaan ku leenahay xildhibaan welcome to London caawa waxaa ku jooga asxaabtaadi saaxiibadaadi macrifadaadi dad badan oo aad ku filan inaad ku aragtaan qiyaasaya magaalada soo dhawaa waan ku leenahay mar kale iyo mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed ee halkan caawa soo qayb gashay idinkana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama aad ka qayb qaadateen soo dhaweynta xildhibaanka caawa halkan oo fadhiyo xildhibaan waa ku salaameynaa waa ku soo dhaweyneynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa dowladda aad ka tahay xildhibaanka aad u tahay ee u hana qaaday ummadda Soomaaliyeed cadawgii
dilaaga ahaa oo dhibaya inay u bixi doonto in ay wax ka qabato in ay la dagaasho waxaad salaam qaali naga gaarsiinaysaa madaxda qaranka wada jirne walaalaya anis weheshane walaalaya wada jirne xildhibaanka dhammaan mas-uuliyiinta iyo kasoo-qaybgalayaasha anigoon maamuuskoodii iyo maqaamkooda hoos u kala dhigayn baada fanaaniinta warbaahinta iyo dhammaan matasharafka kulankan soo agaasintay mahad guud ayaan ku celinayaa aadaan idinkaaga mahad celinaa sida quruxda badan iyo dadkii London ugu mudnaa inaad u kanteen caawa xildhibaan Jacfar miisaanka uu leeyahay ayay ku tusaysaa iyadoo la kala aragti duwan yahay inaan caawa halkan u imaanay أنا قلت أنا سو دوينتي سا وصاحب وولا كدي حلبان يقدمي هرما هن وقفكي مضنائنا هرجع بسوا استعمال مانتين قام فرن يقرب بسوبنا بسوا دوينه حلبان جعفر وردعوا يا هاي أما كل ما دي كلت السنة يبقى حريتا نبى تجارك نقول جري تواريخ أيوة مصاب مري يلقوا يلقوا مصاب مري وبالو كلكان كليا ما أنا قفل بطلائي وواحد كبيرين كرو هو يهاب أيضا حلوان كان قدر يستعجل كل سنة سكوت حلوان السودلو وجود عيننا إلى يقول كرب قلط تجار كانوا بنجرنا سياسة حقيقة بين وطن لا كرب كان تاجرنا الله بيو سودلو حلوان ما نسودلو ضد كان الصوماليين وحن كلهم بريانا يا إلى دورتين لكل كان بشر الصوماليين يكونوا من وأنتي دي حافظ يقص دونها دولة الصومالية الحين بعد هاي سياسيين مبلة حلة قبل صوماليين أمسك يكسله هتا أنا حلبان وحنا قانا من دور جالس الرباط السنة وحنا قانا ودرنيمو صوماليين يقب تدنمله وحنا جعلنا يهرتنا هنا وما عليه حلبان كان لذلك ديارا وكجس الرجال في قوارشته ورو وحتى الرجال في مال حمر أيو فركنا نفانونه هل ما وحنا سوينا بالكذب هنا كوع يا رجال الصقور عند الراد يجعل برجان البور كالهرين هيا كسوينا جاليدا صوماليين مرابط وحنا هم عندنا لكن يبصوا قبلين وحنا يا المذوبة صوماليين وامد وحنا ورانا اسكو ديننا اسكو دقنا قبيلة مشين كسوان عنا رد يقول كهورينا سلامتي وزيرك يا حلواننا يا ماجتورنا يا مسرفتا يا شقرانك بوتدا دليرada gabdhaha waa saxaafada fanaaniinta dhamaantii waxaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta aad u diiran oo aad noo samayseen haddaad tihiin reer ingiriiska ama gaar ahaan reer London waa ku mahadsan tihiin soo dhaweyntiina iyo sida sharafta badan leh iyo sida dulqaadka badan leh oo aad samayseen adinkoo howlihiina iyo laga yaabo meelo kala fogana ka timaadeen soo dhaweyntiina waan ka mahadcelinaynaa waxaan kale oo tasraacsiinayaa wadankii marka xadka warbixiyo hor dadkii wadanka waxaad moodaa inay ka soo tageen intii waxgalka ahaydo ay dibadaha isugu yimaadeen laakiin haddana waxaan rajaynaynaa inaad ku soo laabatiin dalkii maadaama hadda dadaallo badan iyo amnigiiyo laga shaqaynayo iyo shabaabkii oo waddanka laga bixinaa dowladnimadiiyo waddo fiican ku socota adiga kala dadkeena waxaan idin rajaynaa sida hadda wixii ku horreeyay ay wax ahaayeen
ayadoo ka fiican oo waddanka barwaaqo yahay oo nabad yahay inaad ku soo laaban doontiin dadaalkaasna sida hadda u socdo waa sii laba jibaari doonaa haddii alla idmo sharafta aad ku joogtiin dalkan mid ka fiican khaarijeenna inaad ku joogtiin maadaama uusan dalkiinni ahayn waa dareemi karaa wax badan ayaa iska qaldan wax badanna waa saxan yihiin laakiin waa lagu meel gaaray san isleeyahay waxaan rajaynaynaa marka inaad dadaalkiina aad laba jibaartiin adiguna dowladda aad garab istaagtiin dadkii dalka jiray oo aad uga soo tagteen oo walaalihiin ahaayna kolley sida aad gacanta ku hay jirtaan aad u haydoontiin waa ognahay dadaal badan iyo dadka hadda halkaan jooga wax badan inay ka qabtaan waddanka siyaabo kala duwan inay ugu xiran yihiin dalka ugu warqabaan ay ugu wada dheg taagayaan marka insha allah annaguna dadaalka hadda socda argixisada noogu dara hadda waxa ugu badan oo ka jira dalka ayagana waxaan rajeynaynaa in waqti dhow aad timaadin ayadoo meesha laga saaray oo amniga oo boqolkiiba boqol yahay oo aad sida inta aad ku joogtin si ka amni badan oo dadkiinni iyo dalkiinni iyo dhulkiinni ah dadkii iyo dalkii uu ka dambeeyey aniguna farriimihiinna waa gaarsiin doonaa de inta hadda aan soo marana kolley sidaan iyo siya lamid ah ayay maaragtay noo soo dhaweeyeen soomaalinimo leh jaaliyadaha inuu kala duwan haddana jaaliyadda kasta ay lahayd guddoomiye soomaaliyeed oo soomaalida waddankaas joogtoo dhan ay lahaayeen hal guddoomiye fikir kala duwanaashu waa iska jiri karaa laakiin waxaan rajaynaynaa inaad baan isu soo dhawaatiin waxaa kale hadda inta aad ku joogtiin ingiriiskoo kale markii ay waddamada kaleba la iska dhaafo khilaafyo badan waa iska jiri karaan intiinaas markaas joogtaas khilaafsan tihiin soomaali oo dhan meesha joogtana khilaafku waa u badan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa adigu inaad heshiisiin ood hal faral noqotiin dowladdiina aad garab istaagtiin waddankiina isfahan iyo nabad oo ay ka dhacdo waddadeedina hadda waan ku soconnaa dowladdana garab istaaga kala hadal iyo khilaafka kusujina middaasaan annagu ku dardaarmi lahaa jaalida soomaaliyeed ee horjuugkeena dhammaantood oo mahadcelinaa dhalinyaro badan oo waxaa jirta aan aqaano de raggii waddanka shabaabka ka bixi lahay ama wax ka qaban lahayba dibadday soo wada aadeen marka dhalinyarado dhan waxaan ku arkaaba inta aan marayo mid kasto iyo waddan kastoo tagana waxay iska gumid ahaayeen inay ayaga wax iska sheegaan oo aad ay u cayaan dalkan ay joogaan in shaqada looga shaqeeyo dhanba mid kasta inta kuwada ku leeyahay habel meeshaanoo ku shaqayn jiray nintaa kadisa wato mas-uuliyiinta waddanka joogta kamid ah ee kuleeya baskaanoo wadi jiray qashinkaanoo qaadan jiray waa isku badantii gebigen marka allaa laftirkeena waxaan ogaa rag badanoo markii xamar lagu yimaadaan xarag in laysoo daado marayso wax walba qas inta ku bood inta ku dhac ragga markaa gadabta waa yaabeeba nin walba inta istaago inta lama istaago inta lama edabta in la yimi lagama shaqayn karo marka waxaan rajeynaya edabta inta aad ku leedihiin inaad dalka la timaadeen aan ka soo tagay sida sharciga u ilaalinaysiin haddii intaani inta ka badan oo joogto haddii ay la timaado waxa ay barteen iyo nidaamka waxaanba islaam waa toosi karaan waa dadku jooga waddanka marka adinkoo qaldan inaa noo timaadin annagana ewl aan qalad ku dhex jirin waa qalad ugu dar marka waxaana ka faa'iida ana la fikirano la imaada maskax iyo waxaad soo barateen oo ugu horreeyo sharciga sida hadda aad u raacsantihiin waddan kastoo tegi baabuurka xataa meel laga maqan karo loo baahisa istaagaa hal saacada taagaarjamka ya xagga markeeda baabuurka si cawda aan watee waxaa imaa asoo intu kusoo dhuftay asoo baabuur soo dagaalay edabtu ma jirto marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin dhammaantiin waa inku soo laaban doonaa insha allahu inta aan soo arkanay waa soo ballanay siyaabo gaar ah iyo si guud ballantaasna wixii ay fareen inaan gaarsiiyo dowladda ogana warbixiyo waxna ka qabanaan rajeynaynaa insha allahu oo waddankiinni aad ku jeceshiin oo idinka muuqata asigoo nabad ah in aad ku soo laabatiin waa waqti gaar ahaan gabdhaha aad u dadaalka badan leh ragga qaara waxay ii sheegeen anaga markaan dhulkaan joogo gabdhaha loogu karti badan sideedaba wariga gabdhihiinna ragga waa sheekaysanaa sheeko badan u hayaa laakiin waxyaabaha qaladka ama sheegi doono waan qarsi doonaa waxay lee sheegay marka waa mahadsantiin dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi
Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis